warwaadigan kashkashlaynee kelmadaad mar tiraahdo midii kaabil ahayd kolna aan odhanayni ma kaftankii kalamaane kulmiyaad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi no dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay kuroodanan kolkooda hooy kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn hadduu kaagu shaariya ma kayga niqatala dadku waa kalamaan kulmiyana midaysay maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino aryaadhaha heer kalamaan waa idin salaama wax kale idin dhihi maayeehow muddaan kaala maqnaynaye maxaa la sheegay kalamaan muddaan kaala maqnaynaye maxaa la sheegay kalamaan abdullow nabad in hariisa la sheegi hadhawaaw war ka sheeg adil ko sugu haye abdullow maxaad jirtay ma joogtiido maxaa ku keenay kalamaan haye ambarana waaga macabaadka idinla hoos fadhidaa war waxaan soo xasuustan maanta hees uu sameeyey abwaan xasan geley maxaa xasan barrowna qaado oo erayadiisa ay ka mid ahaayeen halkuu ka haloosinayay halkay naftu kala hadlayso hir weyn buu kala dhaxeeye hambari iyo habilal maxaa kala haysta oo hambari iyo habilal maxaa kala haysta oo hayehe yahaanta barrey xaa barrow ku raray oo kor saaray oreedha hadalka naga dhegayso ha fududaane hanka barrey iyo hanka bilaal waa kala fog yihiin wax u dhigan baan arkay maanta wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya waxay soo saartay habraaca doorashada Jubbaland dukumiinti ay ku sharaxayso oo ay leedahay waa in doorashadii la galaa xildhibaanadii sidaas loo soo xulaa madaxweyne ay sidaas u doortaan oo ay ku cadaynayso waxaas wasaaradda arrimaha guduhuna ay goobjoog ka ahaato iyo fududeeye dhinaca kalena Sayid Axmed Madoobe cali masaarkiisii 9 Oktoobar u ballansan yahay dhinaca kalena labadii madaxweyne oo kale ayaguna ismagacaabay waxay sheegeen markuu Axmed Madoobe iscalay masaaro in ayaguna caana ku qubaysanayaan marka Hanbare iyo Hanbilal Soomaa war wasaaradda arrimaha guduhu waxay tiri habraaca doorashada Jubbaland ninkii faraha la gala tallaabo sharciyan ka qaadayna war awowgii la gub masayidkii baa tallaabo laga qaadi war Axmed Madoobe wuxuu yiri wax walba wada hadal waa ogolaa inaan ka galo laakiin madaxweynenimadeeda wada hadal ka gali maayo al sayid axmed dhuxul wuxuu yiri ninkii doorashadeeda lugaha la soo galo gacnaha la gelayna war heede maanta kalamaan kooshan gareen waxa keenaya yaqaan waran dibsi tan ilmo gareen ka socday war basaasna loo soo diray uu yahay war aduu kismaayo ku soo wareeray annaga yuu nagu meereysane hankoolka galmudug hal soo suro aryaadaha dawladda Soomaaliya kismaayo lama maaday ka rabtaa in Axmed Madoobe oo naqdo Madoobe gareen koowd iyo inuu maha ka wareego oo maar gareen la geeyo lamadaasay mid naqahe war bariyaawna miyaa galmudug warshe ma dheegna oo haay wallahi aan liyeelaynin oo billahi liyeelaynin taayirada soo dhaweeya aan gubne wallahi aan loo dhameen oo billahi loo walku waayay ha qoorta gareen alinjeey warmada isaaqow baydhabo warkama hayside orodkii ilmo gareen wuxuu baydhabo ku soo dhaweeyay gudoomiyaashii baarlamaanada Soomaaliya iyo Djibouti wariya baydhabo janaay dhibaatada sansiin hayt ma hayt iyoonay koonfur galbeed oo dhagan soo geega gudoomiyaalkii Allah ka dhawaayay madalaw janaaysa iyo ishay madbirkaan say gurbaanti intii hagaadan ii buuntiyo bug baru leeyma irandhiide waan bari niman yaw ee walaha dhawaayo dadka saasan dhawaay hadii kala hayna fiiga siin gaarana maday isaaqo waagana ma haantiyaad sida war maan leeskow orodkii ilmo gareen waaba maqlaye yaraankii ilmo gareen aaway Ahmed Midoobe meelka dhigli fado yaraankii ilmo gareen hata naashnash ka socda hadii nagadu waana yaraankii meel lisheenahe war Soomaaliland waftigay doonayeen oo dirto cali masaarka Ahmed Madoobe garyaqaankii guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa diiday waxaanu yiri cidii tagta ee lagu maqla ama lagu arko cirka loo diray xabsiga liinta ku cabayaan war Muuse Handaraab miya Handaraabe war Faysal Ali waraaba aaway warkuu sheegaya ma beenoobay ay sidoo kale isku dardaray maalin la keenay wuxuu rabo sheega waraadar Faysal uu faaliya wixii kolba ka soo baxa ayuu ku dhaqaaqa waraada war ma haysaane mooshin garan ba ka bilowday Puntland gudoomiyaha baarlamaanka mooshin laga keenay marka waxaan u maleynayaa booba daarad inuu dhagaadkaado la isdaafinayo boowe Puntland garan ma haysaaniine arrimaheeda iyada xalisanaysa ma imaaraadka iyo mooshin laga
keenay mooyahaas ma Soomaaliya oo dhan lagu shukulaa marka war nabadii nolol cid ay ku dhigtay way siday u dhigtay oo adeer ma birlaba maya waa bir qabato waryahay horta slogan-ka nabad iyo nolol ma taqaana aan idin sheega waxa weeye waa isticmaalnay waa ka jajabinay buudkan kula tumanay iyo waa dhex galnay war waa yaabe ma duulala hadday duulal yihiin burda laguma akhriyo war shaname wasaaran yaa hilmaanteed nafta war horta tubii qayra xagee ku dambeeyeen sidii oo tubanyin wili mal furfurna war buudka lagula tuntay maya waa la dhex galay war maanta meesha buudka lagula tuntay al-shabaab waa cabdirbiloole kabtayda ma aragteena ka dhacday war amiirkii buu aalamiya la soo qabtay waxa uu yiri gaadadaada ballaaran iyo garbahaagan ka garta markaasan geesu dhaqaaqay adeer oo raalli ahaa areer war ma haysiine xarunta gobolka banaadir maanta tan ka dhacdo waa la yaabay war ma dad badan la shaqaalaysiiyay war shaqaale hore baarisu ku socotay naga dhageyso qof walba waxa leeyahay sheeg magacaaga sheeg qabiilkaaga sheeg xildhibaankaaga sheeg nabadoonkaaga sheeg lambarkiisa intaas marka uu ka soo baxo dadka jilcow ayaa la geynayaa waxa leeyahay weliga Arsenal ma ka mid noqotay meeqa goolow dhalshay waxa leeyahay weliga ururdiimad ma ku biirtay qaraabadaada waxa ururdiimad ma yihiin waxa ugu qosol badneed wiila waxa leeyahay sheeg nabadoonka beeshiina ma aqaano isugaan gogolaha ka baaree yaahu googlana shimow nabadoonada la shaqeeyay walaal gobolka wixii ka dhacay waa ogtiin marka dadka in la iska hubiyaa meesha waa ku jirta war ma haysaana gudoomiyaha gobolka wuxuu yiri sir dawladda looga soo horjeedo laguma qaban karo Muqdisho arwar ma haysiina gudoomiyaha gobolka naftirkiisa loo shirayo loo digo waxa la yiri ho gudoomiyahan gacan fureyn ugaan guugiisa gaarima gudoomiyahan gacan fureyn ugaan guugiisa gaarima war gudoomiyaha gobolka shaatigii nabadii nolol loo gili jinkiisu noqday wariya gudoomiyuhu jaakad buu xirtay baanta iska dhaaf war adeer war ma haysaane madaxweynaha yagi Soomaaliland Muuse Biixi Xildiid wuxuu afis u fidiyay jararacaare ciidamadiisii jararacaare wuxuu yiri haddaan aniga la afinayn ciidankayga lama afin karo colka iyo colaadana waan sii wadaya horta cali khaliif ma yimid masawaaga waa maqan yahay ra'iisul wasaarihi mahmaayada warada caloosha Soomaaliland ku jira cali khaliif galay warnimada waxa la yiri nin bajaajka haysta kolku maraya laamiga dadka wuxuu u fiirshaa bal inay kireystaan annagu waxaan heblaayay hadba caashaqaaga wala qayra dhaasha bal inaad yeeshaa kolkaas seexada maadaba waxaan ku miskoolshaa jacaylkaaga weeye haddii aan ku nacabahay wicitaan badaayo kuma soo falaasheen 6 saac habeenkii online inaad tahay amba waa dareemay horta yaad la hadashaa marna miyaan bateriga telefoonku ka damin shaki baa ay taabtay musuqmaasuq waa tahay xiriirkaagu badan ama siyaasi baa tahay warniyo kala jacayl iyo masayr baa isku darsamayba aryaa waxaan ku dhihi lahaa jacaylkaagu ha kugu koobnaadee siyaasiyiinta isku faragashan war waxa la yiri xil qofkii u sarqaama bulsho siisana waaya uqdigii ku samaysnay marka ay suntu biirto waa inuu subaxdii saaqid meediya doonto wuxuu doonana sayro qofku doono saribto foolhuma meedii meerto saahil meedii mayleere aryaa anigu fool buug malihiya hees ku kay caayin yaa maxaa dhacay dadka ka wanaagsanta aryaa kooshi garay agtayna ka wada horta kooshi garay xawnaga soo korkiisa war ilma dariyo sirdoonkii weeye wariya dawladnimada miyaan la wada lahayn waryaada naga taga iimaanka Allah idinku subay haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamada gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo si faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi